سبحانك إني كنت من الظالمين. إلهي توبتكين والنية أي كنقط خالص والله ليال شرط قاس وشرط كوباد شرط الله بعد وحويان إقلاع العبد عن المعصية بعد توبته منها الضون كوا إنه معصية وكتوبت كيني وكفق ولا عليه إنه كفق مركز توبدي السعوني سولا لكن دم بيجي سو كتيره hadduu yaa toobadan mataqaanaaye ilaahay baan toobad weydiisanaya xataa aqligii bashariga ayaan walaalayaaleen ayaan aqbalayn oo qof imika xaakimka xukun lagu soo xukumay maxkamadda la geeyey haddii waxa weeyaan uu leeyahay dembigaas aan galay halayga caafiyo wadana ku dhex jiro lagama yeelayo walaalayaal sidaa wadeed qofka dembiga u galay marka uu toobad keenayo walaalayaal waa inuu ka noqdaa shardiga walaalayaal ku xiga ee saddexaad waxa weeyaan الندم على فعل المعصية عصيدا وكتبت كانوا إلهي قصوا نقضي ولا عليه وينو كمروا وده ولا عليه أو كان نحا مركو حسوسته وينو كمروا ولا عليه لكن هدي نيدا كسي فرحسين هاي ولي هاي ونيو كان ساق صومري كان في عنبوها الله معاناي هدو ولا لي هاي ولا تبدي ساسي وهباء منثورا وبيها ذات كل الرعي ولا عليه حكم الصونس كوس قفك قلبي يسي ولي مع السيدي وانو سمينينوني لكن تعيل كده قلبي وكجرا marka ficilki dhima laha waqti ka soo sameyn kara qalbiga qofka waa inay ka marnaataa oo kana macsid walaalay ka toobadkeen sida awoodeed markuu qofku ka murugoodo dambigii uu galay ee ilaahayna dar ilaahay ka tahay xumaantii uu sameeyay uu ka baxo walaal toobadiis marka waa maqbuul wala aqbalay walaal laakiin hadduu si jeclaysan uu leeyahay wax weyn habeenkaas habeen taariikhi ah habeenkaas oo kale yaa alla fiicnaaye alla yeeso celi habeenkaas oo kale alla maalintaas fiicnayda maalin dambi ku dhacay alla wanaagsanayda haduu leeyahay uu si tamaniyo walaalayaal billaah alaykum tobadaas ma saxmaysa maya ma saxmayso culimadu sida awooda shardigaas saddexaad qofku waa laga rabo walaalayaal tobad keenay dambiyada waxa jira qofku dambigu dambaabo laba mid bay noqonaysaa walaalayaal dambiga inuu ilaahay ka galo khaaliqa abuuray u dambaabo ilaahay wuxuu ka xarimay waxa weeyaan sinoo kale shurbul khamri oo kale waxyaabo kale ku dhaco iyo waxa jira dunuub bayna al-cibaad u dhaxaysa adoomaha u dhaxaysa oo maxaa kamid ah dulmigii qof kala dulmiyo inuu xoog wax kaga qaado agoontii maalkii agoonta cuno qof kale uu xanto qof kale uu ku been abuurto qof kala dhibaateeyo walaalayaal waa dunuub u dhaxaysa adoomaha hadda saddexda shardiyeenu sheegnay walaalayaal way ilaahay iyo wax u dhaxaysa adoonka ay u dhaxaysa dambaabo u khaldamo waxa weeyaan dambi isagii Allah taala uu ku dhaco muharramaad uu fiiriyo saddexda shardi walaal laga raba shardi afraad ku siyaadii hadii dambigu isaga iyo adoomo u dhaxeeyo oo mesela kale hebel buu dulmiyay been buu ka sameeyay amba uu xantay amba xoolo ka dhaco xoog buu ka qaaday saddexda shardi aynu hadda sheegnay waa laga raba walaalayaal saddexda shardi aynu sheegnay in mataqaana niyad ka ahaato toobadu inuu dambiga ka foqo oo gacanta ka qaado bataatan iyo inaanu niyada ka sii noqo saddexda shardi laga raba waxa kale walaalayaal u sii dheeraanaysa inuu qofkii ka xaraashado wixii uu geystay hadduu dulmiyay oo xoolo ka dhacay amba wax kale uu ka qaatay walaalayaal inuu yiraahdo hebelow saasan sameeyay maxaa walaalayaal arrintaas aad ka yeelaysaa man ku magdhabaa madiga cafinaysaa qof buu xantay waa uu tagayaa wax oranaya walaal hebelow kelmad baa iga dhacday walaal iga cafi walaal uu ka been abuurtay war hebelow saasa walaal dhacday hadal aanad oran baan ka sameeyay walaal iga cafinay waa wax weeyaan hadduu qofkaas ku raahdo walaal uu kaamaan cafin ee way noo qiyaamaha hadduu ku raahdo walaal طبعا wax afkiisi galay
marka duu afkiisi galay shana waa yeelan karaa ka soo noqoshan waa la yeelan karin maayo adigu taladu marka adiga faraaq way ka baxday adigu 100% isma maamuli kartid waayahay online soo iska dhaqaaqaysa marka qofkaas laga yaabin ku cafin waayo laakiin adigu waxa ismaamuli kartaa walaalayaal markuu qofku isagu afkiisa kelmadda intaan ka soo bixin wuu xukumi karaa laakiin ka soo dhacdo uu ku raawniyo ma been baad iga sheegtay ha waranu kuma cafin walaal xaq buu leeyahay walaal marka walaal waan iska ilaalinaa insha Allah ta'ala biidin ilaahi wahdi ilaah sidaan tilmaano walaalayaal toobadu waqtiga ma laha labada waqti ee qof marka naftu qabatay marka waxa weeyaan ciyad wala ka soo baxdo baan toobada la aqbalin laakiin markasta toobadu waa maqbuula adoo laga rabaa oo ilaahay waa ka aqbalaya in Allah nabi alayhi salatu wasalaam in Allah yaqbalu tawbata al-abdi ma lam yugharqir ilaahay waa aqbalaya toobada adoonkiisa inta naftu aanay qirqiraha soo gaalin qirqiraha waxa weeyaan marka qofku naftu qirr ay tiraahdo marka adoonka ee naftu soo baxayso ee qaarka dambe ka soo baxdo marka wala toobadu maqbuul maaha la aqbali maayo وليست التوبة يعملون حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما بالله سبحانه وتعالى هو وحوي نفط مركي قبط توبت كينية يكوى قال ماذا كل انتهي نبي كل انتهي واسي توبت ملح واسي توبت ملح وكوى يجو وحويا وإن وحويا أي ولا جح السامني وحي كله ده كل انتهي نبي قاس يهداني كتوبتك أدي نفط قبط سيدا ودد ولا ليال نفطنا قفك وحب مركز تقول ماشي والنبي قاو كل حاحنا كنا قصبية كل السماء وهو معانتها وواحد في عينها وتكتبت كين دونتا نفبا شيطان بكل مان شيطان كنا محو كربا الضومان وسنو ليه الضومان محو كربا إن النار تكوه ليان سيد الهبة المامي إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب النار الضومها حزب جيسة وش متقنا وسميسنا يوم wuxuu u yeerayaa xisaabta faraha badan uu sameeyay dadkii u waalaya si ay uga mid noqdaan kuwa naarta ku jira ee asxaabu saciir ah ayagana mid noqdo ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu saxaabadii nabiga alayhi salatu wasalaam kamida ayaa wuxuu yiri at-tawbatu nasuh tawbada la aqbalayo wanaagsan waxa weeyaan an-nadam bil qalbi qofku qalbigiisa ka murugoodo والاستغفار باللسان إن قفك عرب كيس كاستغفار الصدق استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله والإدمار أن لا يعود إليه أبدا إن قفك قلبك قبصده إن أنا ولي يكون دم بقاس من قلبك قبصده دم قلبك قاس وهدو قفك سلي هاي بريء بعد كوير أدرارك كوير حد دونتها أم بس سبت كوير تور دونتها كتورن دونتها وسليهاي oo muddo naftiisi ku sii jirto xilliga ku sii jiro walaal toobadaasi la aqbali maayo taswiifu toobada qofku inuu dib dhigo wada bari baan toobadkeena doona waa asaaliibta iyo asluubiyada dhaqanka uu isticmaalo shaydaan ibliisku isticmaalo waa hubabka ugu casrisan ugu khatarsan oo ibliis adoomaha u isticmaalo qofkii dimadin dara qof kasta oo muslima oo dambaabaya inuu toobad keeno waa guli ma diidana laakiin wuxuu leeyahay bari baan toobad keeni doonaa insha Allah bari toole insha Allah saad dambe waxba imka geer khaldan waxba isku beegmeen laakiin bari baan toobad keeni doonaa mar baan u fariisan doonaa taswiif weeyaan waa waxyaabaha aad iyo aad ka u daran ee shaydaanku adoomaha ku lumiyo taswiif weeyaan oo qofku geerida iyo mawdka iyo xilli naftu ka baxayso موجا وبغتة كدس وين ولا يمس قفبا يجون كنت لقى السنين عاير نفسك بود موت القفلة قار خاتمهم قار خاتم مناكسن وين مقلن قصوينك كلا ددون قار خاتمهم ما كلنتي قار خاتم مناكسن كلنتي انت ويتشرا ولا لا كموتك ما لها حل علماء هو عالم كم ذا وحوري أو بكر على واسيد الأورنجري التأني في كل شيء حسن إلا في 3 خصال وحكا فيرسي
تأنيق waxa weeyaan shay qofku inuu ku degdegin aanu ka fiirsado aanu ku degdegin baan ta'aniga degdeg la'aantaas iyo ta'anigaas way fiican tahay waa arrin wanaagsan weeye laba dhowr meelood mooyaane ثلاث khisaal ayaanu shaygu qofku ka fiirsanaynin sugaynin uu hore ka sameynaya markaas waa hadma waa cinda waqti salaad markay gaadho horaad ka boodaysa iyo meesha labaad oo ah cinda dafni lmayt markuu qofku geeriyodo dhinto hore laga aasay iyo at-tawbatu can al-ma'siya markuu qofku dambaabo ka toobadkeenayo qofku hore ka degdegaya isla markaa waxa uu sameeyo ayuu waxa weeyaan ilaahay u toobad weydiisanay mujaahid oo kamid ah culimadii waqtiyadii hore qarniyadii hore noolaa ayaa wuxuu man lam yatub ida amsa wa ila asbaha oo min adh-dhalimin qofka aan toobad keenin marka uu waa bariisto iyo markuu galab waxa weeyaan min wuxuu kamid yahay kaasi kuwa naftooda dulmiyay min adh-dhalimin isagoon cid kaleba dulminin ayaa waxa walaalayaal wuxuu dulmiyay naftiisa oo waxa weeyaan dambigu ka soo noqon karayay oo ilaahay weydiisanayay ilaahay waa ghafaarur rahiim dambiga adoomahu galaan markaba ka dhaafa nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo wax weeyaan aan dunuub sameyn uu intaasoo jeer maalintii ilaahay u noqon jiray 100 marra waay cali radiyallahu ta'ala anhu cali ibn abi talib oo wada naqaano saxaabi geesiga ahaa ayaa wuxuu yiri al-ajab mimman yahliku معه نجاة waxaan la yaabaa buu aad la yaabaa buu waa cajiiba cid halaagsamaysa oo haddana najaad badbaadaysa markaaba hadda waa halaagsamaysa isla markaana waa badbaaday najaagii badbaadadii iyo halaagii wada socda qof halaagsamay haddana badbaaday ka war waa arrin la yaabo ma hiya ayaa lagu yiri qiila ma hiya oo talo qofka hadda intuu halaagsamo hadna marka badbaadi waa maxay qaala al-istighfar wa qofka ilaahay u toobad keenaya ay istighfar sanaya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah oranaya kalimaadka wanaagsan oranaya waayo kalimaadka wanaagsan iyo daacaadka iyo wanaagu iyo qofku inuu wanaag sameeyaa dunuubtiida waxa taa tirtirtaba oo xasanaadku waxay tagsiyaan xumaantii tagsiyaan way sida awoodeed qofka nafta shaydaan ba kullamaan wala leesan tilmaanay waa inuu qof naftiisa markastaba ka warhaya oo waxa weey uu la socdaa dhaqdhaqaaqeeda maxay samaysay maxay gashay maxay waxa weeyaan ay ku sugan tahay ma shaydaan adeecay ilaahay dambigii ka dhacay waxa weeyaan mooga toobad keenay dambigii qof ka dhacay mooga toobad keenay markasta walaal qof naftiisa la socda qofka shaydaan ayaa loominaya tafku dib dhigaya alla bari ba toobad keeni alla may bari ba toobad keeni iska sug ila leeyahay hebel waa dhintay ambaba ad ilowdaba waayo qofka bini aadamka ahi aad buu ilowsh badan yahay imise dambi ban ilowni oo qofku islaamay waad ka toobad keenta ma dhib bay leedahay ilaahay bad fariisan gacmaha taagi waa toobad keeni oo qofkaasi ilaabay imisa waxa weeyaan qofkii toobadiina la waafajin u geeriyooday taswiif iyo dib u dhigis waa waxyaabaha shaydaanku aad iyo aad u isticmaalo adoomaa ku lumiyo sida aawadeed quraanku wuxuu inagu qisooday dabalka fiirsada asxaabu naar dadka shaydaanku marka naarta la galaan dadka shaydaanka ibliis bay eegayaan way qabsanayaan way xanaaqayaan maxaad noo lumisay oo jidka sareed xaqaha nooga leexisay xagee nagu waday sidii noolaha maaha maxaa nagu gashay shaydaanku minbar naar ka samaysan buu furaya waa khudbadanaya maalintaas oo marka kaliya shaydaanku been dadku sheegay runtuu sheegay maalinta xaqiiqa waayo hadda imika ismeermeerin dambe iyo waxyaabo kale ma jirto way soo afjarantay sheekadu qaala shaydaanu suuratu ibraahim wuxuu ku leeyahay qaala shaydaanu hadda eega shaydaanku wuxuu leeyahay وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم markii arinta la kala jaray
قضي الأمر أنتو كلا قاضي محي سيدو كلا قاضي تدكي هالنار كهر نار تقلين تجن أهل جنة تقلين أنا هلا دقي أفضل بوحيس للسي شيطان كف عرنيا وح عرنيا إن الله وعدكم وعد الحق إلهي وحي نكو بلنقاد هرتو وعدي حقه بلنقاد حقه بإلهي نكو بلنقاد إلهي وقرآن كواكوت المامية إن الله لا يخلف الميعاد إلهي بلنتا ما دي بدقو الشيطان كما أنت عمرك فرأي وحرنيا هرتو إلهي أن بلنقاد حق أيو نكو بلنقاد وعدتكم أنه واني بلنقاد كيو لكن حق ما هين كيو حق ما هين بول فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ما أنت وح أودون الله هاي أن لا هنا متشرت وما كان لي عليكم من سلطان مركان دم بجين كويري وح باورا وأوده وح ويان أنتكو خصبي أنسنك كي جليي متشرين إلا أن دعوتكم إن أنكو يريمو يعني بس أنا قوان أنكو يروح أنكوري وحي سوا قرح بنياي سمايا وانين للالي وانين قرحيي بس انت wax ka daran wax ka duwan oo ka awood badan walaalayaal idinkuma siin booranayo laakiin ninka ikhtiyaarka doorashada laha waxa markaa dhacay markaan ku yeeray fastajabtum li waad adeecdeen fastajabtum li waad soo raacdeen waad adeecdeen waad adeecdeen anigu awood iyo power arrinkaas macsida ah idinkumaan qasbin فلا تلوموني هاي عناننا أنيقا هاي عناننا ما أنت ميلاد أنيقا عنانتان متشوكتان ولوموا أنفسكم نفيهن عنانتا أيو لي الشيطان إبليس ها إبليس وحلي هاي أنيقا ما أنت هاي عناننا إدكو إس عنانتا واي ما أنا بمصرخكم ما أنت أنا من إدين قرقاري كرا وما أنتم بمصرخي إذن كونا متيدين قار أنيقا قرقاري كرا أنيقونا وحبا إذن من طريق كرو idinkuna aniga waxay matali kartaan haddaan ibliis ahay marka waxa weeyaan yaanaan isku mashquuline cadaabka aynu wada qaadano wili shaytaan ibliis ayaa saa oranay ilaahayna waa noo fud way noo qasooday quraankiisu nooga sheekay oo noo tilmaamay walaalayaal inay waxa soo dhan ay maalin maalmaha kamid ah ay iman doonto oo xaqiiq noqon doonto ay noo tilmaamay إن الظالمين لهم عذاب أليم بالله آيات حاجة مكسورة الظالمين تحليهن عذاب آبي هذا الدرن إليه شيطان كوكا كمر خاتم فري وعد إلهي إنه حقيقي ولا على توبة محا وحوي دقيقة محا فائدين نقول شرته هذا قف قدام بابي هذا وين توبت كنا هذا مع السكر علي وين توبت كنا هذا يحماني كرد علي إسلامك وين توبت كنا توبة دقيقة قفك خير ما قرافي لكن خير يسوس ده تصويف التوبة لازم متشرته ولا ليه متشرته وح فايدة يسوى ده متشرته مركا سيدا ودد نقول عليه الصلاة والسلام ما دام التلمامي إن قفك بني آدم كي مركز تدم كداعي أو خضاي هي أو دم بدنا ويهي وحويا وإنه أن قفك مركز تأو ولي ما هذا طبعا قتادة رحمه الله وعلماء هوري كميدا dadkii qarnigii labaad noolaa ayaa wuxuu yiri tala aad iyo aad u cajiib alquraan yadullukum ala daa'ikum wa dawaa'ikum quraanku wuxuu tusaya daa'ikum xanuunkiin wa dawaa'ikum dawadina waa tusaya xanuunadii khatarta ahaana quraanku waa idin tilmaamay dawooyinkii aad ku shaafi noqonayseen aad ku caafimaadayseen labadiiba waa idin tilmaamay ayuu leeyahay qataad واي أما داؤكم حنونكين وحوي الذنوب والذنبية معاصي وحنون قلبي قفك كدعي معاصي ويانهم قفك معاصي ولا لا الدنيا والراعي واي وأما دواؤكم دوديننا الاستغفار استغفار الله مغفرين ويدي استدم داف استغفر الله سبحان الله والحمد لله والله إله إلا ذكري أذكار وليماد وحويان ولا ليل والدودي تاسنا مع سيدا قف قد عيسان وحنونكي ويا ولا ليل سيدا ودي ان هذا الواحد تحيك ماذا او قرون يقرنيو بقول الله سنة كهر
caanaha oo waxa weeyaan cajiib aha oo intaas oo waxa weeyaan naqli la iska soo dabararay jiilba jiil ka dhaxlay ka sii dabararay hadal xukamaada raggii xikmada lahaa mufakiriintii islaamiga ahaa xukamadii ay jiilba jiil kasii dambeeyay kasii dhaxlayeen baa jira hadalkaasi waxa weeyaan kelmadda odhanaysa kelmadda walaalayaal u fiirsada alcaaqilu man itacada bigayrihi waljaahilu man itacada binafsihi alcaaqilu qofka caaqilka ah caqliga badan leh maskaxda badan leh waa qofka man itacada qofka kuwaana qaata bigayrihi isaga cidaan ahayn kuwaana qaata qofkaasi inta badan waa badbaadaa haddii jaanibka aakhira noqoto iyo jaanibka adduunyadaba jaanibka adduunyada aad u fahmin hebel ganacsigiisu waxyaabahaas ku kacay sidaa saasuu sameeyey hadhow markan ganacsi bilaabayna waan iska ilaalin haa odhanna alla hebel balka ku khasaaray inaga leexiye baa odhan hebel saasuu sameeyey inaga leexiye baabuurkaas waxaa lagu shubay saliid aan saliiddiisa ahayn baa lagu shubo saasuu makiinada ku gubatay waxaa la odhanaya war bahashaas gaarigii hebel baa ku xumaadee inaga leexiye hadalkaa hebel baa ku waxa weeyaan jeelka ku galaye inaga durkiya dhinac kastaba dawada xataa waa la tajribeeyey marka caaqilku qofka caqliga badan maskaxda leh dadka kale ku cibro qaata waxyaabaha ku dhacay hebel waxaas ku dhintay isagoo saa jiray naftu ka baxday waa cibro qaadanaya imse saaxiib baa ku dhaafay imse walaal faamiliga imse qof baa tegey imse qof baa wax baan toodii u timiday imse qof baan soo noqon halkay ku sugayeen imika adduunya inagu joognaa iyaga tolo maxaa habeen iyo maalin kasta waynu soo kacnaa tolo iyagu maxay ku sugan yihiin xaaladooda tolo waa sidee ma janay ku sugan yihiin ma cadaab bay ku sugan yihiin qofka qabriga marka la dhigo walaalayaal laba mid weeyaan mid saddexaad ma laha imaa rawdatun min riyaadi aljanna aw xufratun min xufri naar nacuudu billah ama beeraha jannada ka mid qofka qabrigu noqda amba godadka naarta ka mid ah ayuu qofka qabrigu noqdaa si nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo tilmaamay labadaa waxaan ka dhaxayn ma jiro bas waa labadaa ahlul qubuurku waa labadaa ilaahayna waa naga qariyey cabaadkooda ahlu naarka adduunyada markaynu joogno qubuuraha laakiin mayeedhaanku waa maqlaan waaye alcaaqilu markaa man itacada bigayrihi qofka caqliga badan leh waa qofka ku cibro qaata isaga cid aan ahayn ayuu ku cibro qaataa waljaahilu man itacada binafsihi ka jaahilka ah ee wax weyn dhoosaha ah ee isagu soo jeedina moogani waa qofka naftiisa kuwaan qaata wal aniga waxaas weligu ma dhicina ay kornay war maaha hebel balka ku waxa weeyaan ka soo noqon halka hebel ba ku khasaaray ka joog war waxaan horta aniga ma igu dhaceen anigu miyaan arkay anigu foolka fool waxaan miyaan u arkay maya bes anigu hadda waan arkay wuxuu baraarugayaa oo waxa weeyaan waan toobayaa markii waxaas ku dhacaan khasaaraha maaliga ah ay ku dhacaan amba khasaaraha aakhira ukhrawiga ah ay ku dhacaan buu walaalayaal baraarugaya rabbi irjicuun oo qofku markuu baraarugayo waa qof markuu aakhira tago waxa weeyaan ayuu baraarugaya oo waxa weeyaan qiyaamaha tago hadduu qof dembi ku dhacay oo uu islahaa malaha waxani wax dhaba maaha markuu baraarugaya allah subxaanahu wa tacaala uu noo tilmaamay waxa weeyaan marka uu tago aakhira uu tago qof qiyaamadu dhacdo wuxuu oranayaa rabbi irjicuun lacalli yacmalu saalixan fiima taraktu ilaahayow celi dibii celi ilaahayow waxaa laga yaabaa camal wanaagsan oo fiican oo ku raalli geliya inaan soo sameeyo ilaahay muu ka yeelaya maya kallaa baa lagu odhanaya kallaa maya lagaa yeeli maayo waxaas kaa socon maayeen baa lagu odhanaya kallaa innahaa kalimatun wa qaa'iluha kelmaddan iyo celi ilaahayow waa kelmadu iska yidhi un laakiin wax ka soo qaad malaha wax ka soo qaad malaha ilahay mar kale wuxuu noo tilmaamayaa waanfiquu mimaa razaqnaakum waxyaabahan idinku arsaaqnay wax ka bixiyo ilahay dartii ula baxa sadaqa ula baxa min qabli an yaatiya axadakum almawtu fayaquula rabbi lawlaa akhartanii ilaa ajalin qariib faasaddaqa waakun min alsaalixiin walan yuakhira allahu nafsan idaa jaa ajaluha
والله خبير بما تعملون نفتو وحويان انت نموت كذيما وأنفقوا مما رزقناكم وحان رزقنا وحكبحيه من قبل أن يأتي أحدكم الموت انت قريد ذيما فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فيقول لولا أخرتني ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب سورة المنافقون إلهي يدب يعلي أجل دو دب يعلي فأصدق أن دبت صدقيست وأكون من الصالحين أن صالحين تكمل نغض إلهي يحيري ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل إلهي نفنا دب مرقه مركي أجل شهدو تماده والله خبر بما تعملون سيدا ودد ولا ليال ذنوبتين دنبابينه الدنيا ولا يقف مركو توبه ونفتي سكمان توبه ولا سقوس أركع ومرقه هبل وأرنتها وانكو خسارة وحد أرنكها ولا إن السماء ما هين أرنكها نكون دعمه أيو الدنيا كفوانت آخر محكوان توبيه وكان آيات القرآن كهينو تمام حورنا يا أنا عرب ولا لك الصهري ولمركا إن شاء الله نفتي إذا إن فهي نفتي إذا إن فينا وحن لتش على يستك كلمة ده توبضع إن نحسوسينه ونحسوش أبو نواس وشعراء كم ذها قبل يجري وقت يدي هرنا ولا بروح يقولي كلمات آدي وعجيبة من دنبابي دنبي بكسون نقضي قبل يبتدي مركا وحول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة ربي غير هدي دنبي ذبتين كثرة أذفر بتين فلقد علمت بأن عفوك أعظم وحن أقادي ويقين صدي إن عفس كاغا وكوي مركزتا عفس كاغا وكوي هاي دنبي كستون سمي وأنا فهمتي وأنا حقيقة وحقيقة واي دنبي كستير هوا أقبل وحسو قبل سوى وحوري إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم إلهي هدي أنا كرتشين قف محسن وناكسن موياني هدان عدك كرتشين با كيدن بابي الضماء كمدها يرتشين إلهي وعدنا إلهي أذن بكرتشين أدعوك ربي كما أمرت تضرعا إلهي وانكبري وانكوص النغضي أنا وسكر لوليغي السكر دوليني فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم إلهي هدي قبل ويد تبضى إلهي يئن حريصني إلهي عوانيا إلهي وسكر لوليغي marka walaalayaal naftayda inafihiinaba ku baraarujinaya maadaama dhikriga iyo wanaagu ay nafaha mu'miniinta wax taraan ilaahayna uu noo tilmaamay aayaadka quraanka marka hore aan bilaabnay barnaamijka aan noo akhriyay waxaan insha Allah ta'ala ka rajeynayaa in naftayda iyo nafihiinaba kalimaadka qaaliga ah ay wax taraan walaalayaal aan ku baraarugsanaano baabka toobada toobad keenka qof dambigiisa ka soo noqda baab ciyaar ma baab cajiib weeyaan ilaahayna aad u amray aayadkiisa nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadiith fara badan ay ku sugan tahay man taaba Allahu alayhi qofkii toobad keenay ilaahay baa ka aqbalay dambigiisa waa ka aqbalay dambi kasta adoonku sameeyo haduu ilaahay dambi weydiisto dambi dhaaf weydiisto ilaahay baa ka aqbalay shuruudii aynu sheegnay waa muhiim walaalayaal inaynu la socno shuruudii aan sheegnay toobadu lahayd insha Allah ta'ala waan ku dheereeyay afan baan idin leeyahay intaan akhriyo oo mataqaanay aan soo dheereeyo kuma soo talagelin Allahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu fiikum jazakumullahu khairan la yabarik fiikum